duleedka deegaanka Coodanle ayaa waxa mudooyinka u dambeeyay ka socday shirweynaha nabadeynta beelaha bariga Burco iyo Buuhoodle waxaana halkaasi muddo 9 casho ku sugnaa isimada cuqaasha iyo waxgaradka labada dhinac oo halkaasi u tagay sidii ay nabad waarta uga dhaxdhalin lahaayeen labadani beelood oo muddo dheer colaadi ka dhaxaysay shirkani ka socda duleedka baliga loo yaqaano Coodanle yare ayaa waxa marka marada TV-ga caalamiga ee Kalsan ay booqatay waxaan wax ka weydiinay gudida shirkani halka ay wax marayaan ugu horeyn waa kan Abaan Waraabe oo kamid ah gudidaasi oo ka hadlay sida wax u socdaan waxaan aad iyo aad idinku hambalyeynaa sida aad hawlaha uga qayb qaadateen dadka saxaafadda sida halka kan waxa ka socda madasha Coodanle ee nabadda u baahinaysan marba dadka u gaarsiinaysan daqiiqad walba waxa soo kordha waxaan saakaydi sheegaynaa inay arrintu meel wacan marayso rajada la qabaana ay tahay boqolkiiba 400 in wax waliba isku hagaagaan wax walba nabad laga gaaro iyadoo gacmo la haysto la faraxsan yahay lagu kala taga halkan ergey waliba uu beeshiisii iyo umadiisii gaarsiiyo wax ay ku farxaan hadii Ilaahay ka dhigo saasaan rajayna assalaamu calaykum weynay marka hore saxaafadda gaar ahaan Kalsan TV-ga Kalsan oo aad iyo loo shaqeeya ummadashan aan joogno aad iyo aad uga shaqeeya oo nabadda aad uga shaqeeya waa soo dhaweynay marka hore waa nabad shirkiina waa socdaa si wanaagsan oo socdaa si wanaagsan oo loo wada hadlayaa haddii Ilaahay ka dhigona waa gabagabana waa taagay intaana waxa la gurayay un xaajooyinka sidoo u kala hooseeyeen iyo sidoo kala sareeyeen waa loo kala gurayay in kana meel wanaagsan bay maraysaa looma kala tagin oo mana kala maqna haday madax dhaqameed tahay haday cuqaal tahay haday waxgarad tahay haday odayaal tahay haday culimo tahay intaba midna looma kala maqna waxaan leeyahay waa shir nabadda wax ka wacan ma jiraan nabadda wax ka macaan ma jiraan labada beelood waa inan iyo abtigi waa inan iyo seedigi waa inan iyo hooyadii waa inan iyo habaryadii waxaan leeyahay nabadda laga shaqeeyo marka hore nabad dhinaca kale ergada Buuhoodle ayaanu dareenkooda wax ka weydiinay ugu horeyna Sheekh Umar Suudaani ayaa ka hadlay sida wax u socdaan iyo halka shirku uu haatan marayo meel fiican buu marayaa si loo tago socdaan ismada ay xajada lagu wareejiyay ilaahay wax ka rajeeyay inuu dhaqso dhamaado aad baan wax kasta wanaagsan yihiin dadku waa dad ehla waa dad islaama waa dad darisa ودad qaraabo ah intii wala isu soo hiloobay wala isku bahliyoobay wanaag badan baa ka dhex muuqda khayr badan ka rajayn xaq Ilaahay dartii maan hawsha soo socotaa hawsha iska madaxnaan weeye cidii siyaasad guriga ama maxay ahayd la timaadana waxba ka yaala shirku de kulli waxa loo yimid nabadeyn baa loo yimid muddadu way yar raagtay dadku de kulli caawanayaan laakiin hadii ay ilaa la yiraahdo dayr ba ku daaysa annagu waanu jooganaa waanu ka jiba keenana hadii Ilaahay ka dhigo nabad baanu meesha u nimid nabadaanu meesha u nimid ilaa la dhameystiro taasi waxay noogu dhamaato ay dadkayga ay ku qanacsan yihiin waxaan dadkayga kula noqono oo wanaagsan baanu meesha u fadhinaa bashan shirka ee Coodanle hawshu waxay uga socotaa 100% waa wanaagsan tahay rajo weyn ka qabnaa oo aan Ilaahay idinkii ay ku dhamaanaysaa guul iyo iyadoo gacmaha la haysto waana wacantay rajaduna waa wacantay shirkina waa socdaa wali ma dhamaan shirweynahani ayaa soo jiitamayay muddo dheer iyadoo shacabka labada dhinac ee bariga Burco iyo Buuhoodle ay u dhagtaagayaan qodobada ka soo baxa shirkani oo muddo dheer la sugayay waa Cabdicasiis Aadan Jaamac wararka TV-ga caalamiga ah ee Kalsan baliga Coodanle yare Buuhoodle